السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيتين صاحبتي في عنتهين maanta waxaan rabnaa inaan horta ku isniinta aan xoogaa yar ka nasano qisooyinkan oo dilka iyo dagaalka iyo kala cararka ah. Maanta waxaan sameynaynaa rabadaanka soo dhaweynaynaa. Rabadaanka waxaa noogu dhiman January, December kilo because haddii mar uu saabo dhowr iyo toban January iyo February dhexdeeda adi isku soo dardar 2 bilood baa noogu dhiman rabadaan. Soddonka maalmoodna waxaa waaye waxay u cararayaan si cajiib leh u cararaysaa. marka waxaan sameynaynaa waxaan ka sheekeysanaynaa 2026 rabadaankiisa maxaa nolosha iska bedeli lahayd. Aniga noloshayda intaan soo socday adduunkan aan joogay dhowrka sano ugu dambeysay deertaan ma ogiye inta ka horeysay surprise ugu maan jirin. waxaan u maleysaabo markuu rabadaan tago inaaba iska iloobaybo markuu soo noqonayane ani waxaa ii maleysaabo inaa waddan kale ka imid adduunyo kale ka imido waxay dhacay baan ogeyn. odagoo ordaya imaanayo rabadaanaa soo dhow wax isbuuca ka dhiman rabadaanaa soo dhow isaanay ahayd caawadaad waxaan u soconaa taraawiix beri waa la soomayaa. kala orod carar raashinka fikir subraysaa laygu yimid rabadaan subraysa igu imaaday. adduunka waxaa ugu necbanaan jiray sanad kastana afarta dhexda ka qaniini jiray inuu taas igu dhacdo. sanad kasta way ugu dhacaysaa sababta ah mashquul adduunya ah. waxaa mashquul ku ahay caruurtii gurigii maxaa la dhahaa yaa wax lagaa sheegin waalidkii yaa wax lagaa sheegin kan suubi kaa suubi maskaxdayda dhan way mashquulsan tahay. madaxayga waxay ii saarnay kabahayga waxaan ku soo mooday carar alaa ii taxal warkayaan ku daalinne rabadahaad waa noo soo socdaa. waxaan rabaa inaan iiga digo an nafteedana u digo tii igu dhicin jirtoo kaleentad inay marnaban igu dhicin. aniga hadda ilmihii way ii koreen laakiin weli jikaa ku jiraa. soomaaliya mala joogo meeshaanitod yurub marka la joogo waxaa waaye maamada jikada waxay ku jiraysaa ilaa qabriga laga geynayo. sababta waxaa waaye shaqaale indhahaaga masaaris adaaba shaqaale ah. lacagta shaqaalaha ku bixi lahayd waa tii adiga kasoo shaqeynaysa banaanka ama ninkaaga kasoo shaqeynaya banaanka. marka shaqaalo ilma saari kartid mana iska bixin kartid. maxaa soo haray oo kaleentood ilmihiina waxaa tiri wax bartoo nolol subsada jikada ku mashquulnaha hadday ku caawinaan alxamdulilah. maalinta markay imaadaan xoogaa caawinaad yar oo gacan hadday ku siiyaan aanba isbuuci haddii hal mar gacan ku siiyaan alxamdulilah because adigaa u horkacda ilmahaaga inay wax kuu bartaan inayna guriga fadhinin maxaa la dhahaa aynan ku dhameynin waqtigooda digsiga iyo jikada. guriguu ku sugayaa gurigaaga wixii ku subsan lahayd inta ku barbaro markaad timeka haysid iyo marka adiga jeceshahay. laakiin ha ku mashquulino jikada anaaba joogaba anaa jikadeeda ku mashquulayo. marka maadaama aad subsatay choicekaas aad subsatay oo ilmahaaga ururtid inay horumar subsadaan ayna muhiim tahay xataa inay bartaan raashinkooda kariskooda. ogsoonow ilmaha qasab waa raashin in la baro inay sidai karsan karaan wiil iyo gabarba because waxaa la rabaa ibni aadanka inuu iska bixin karo meel alla meeshuu aado. taas maha doodeen waxaa waaye maamada guriga markay yurub joogto waxaa sugaayo jiko aan dhammaad lahayn qabriga lay ka geliyo jikadaada sidaa hore usoo sheegay. marka si aanan jikadaas ugu mashquulin oo annagana aan salaadeena iyo maskaxdeena oo mashquulsan aan rabadaan ku moodin haddaan sii qabano. aniga sanadkii hore saa hore nigu soo sheegay videoga hore nigu soo sheegay sanadkii hore bil ka hor maxaa la dhahaa waxaan sameynayay aan qur-aanka sii bilaabay because qur-aanka mana dhamayn karin maxaa la dhahaa bisha rabadaan. waxaa waaye cajiintii baan reerka u qasaa ilaah ajra iga siiyo idinkana ilaah ajrna iga siiyo. jiko waxaan gelinay waqti raashin waa loo baahanyaa nafta raashin la-aan ma sii soconayso. soomaalida hore heesaa jiro la dhihi jiray guri gaajo waa laga guuraya hees ahaa jirto ma xasuusta see wada ahayd. marka saaxiibayaalow inaad degsatid balaan waayo buugii qalina saan usoo qaadane balaanaad degsane 1 2 3 4 markaad degsatid anoo u fiirsada waxaa meel ku qoro waa dabagala gacmaha tamjida wax iskaga qoran. markaan wax meel ku qoro waxaasaa markasta ku noqdaa waa firinjeerka ku dhigsadaa warqadeeda
hadda haddaan idin tusiyo firinjeerkeyga warqad waxaa igu dhegan oo ah tasbiixda maxaa la dhahaa ikhlaas saliga nebiga qulwalaha halaha aan akhriyo derbiga igu dhegan tahay oo maxaa la dhahaa firinjeerka maxaa u dhegsaday mataqaanaa waxaan u dhegsaday waxaan rabaa inaan xisaabto waxaan qabanoyaa ama waxaan qaban rabaa nafteeda baxray igu tuurtay marka xisaabaan ku socdaa waa qoraa firinjeer korkiisa igu qoran yahay marka alaa ii taxal saaxiibayaalow rabadaanka waa soo socdaa bishii maxaa la dhahaa sanadkan marka alxamdulilah shukr rabbilcaalamiin sanadkan waxaa dhacday rabadaankii markaan qur-aankii akhrintiisa aan bisha rabadaan iyo bil kasii horeysa 2 bil aan isku waday aan ku dhameeyey ilaa maalintaas ilaa haddeertaan waa ku dheganaa kitaabka isbuuc ay ka fakanaysaa jirto ama meel la aadayo anoo xanaagsana imaana waa isoo canaana waa isoo bushgareynayaa meeshaan kasii bilaabayaa waa sii wadaa laakiin ma daynaayo bil ma igu dhammaanayso anoona kitaabka qaadanin bil maxaa waay isbuuc haddii ugu dhammaato xanaagaa meel la fadhiisana waa xanaagaa marka saaxiibayaalow qur-aanka aan qabsano qur-aanka waxaa waay marna shifaa waay korkuu ku shifeegareynaa qof kasta ogtihiin laakiin isxasuusin waay caafimaad waay oo caafimaad ku keenaa raaxat alqalbi ka heli waxaa helaysaa qalbigaaga kuu raaxaystayo aad dareensan tahay ya facaa inuu kaa tegin waxaa kaloo helaysaa xanuun hadduu ku haayo korkaa iskaga tufaysa iska marnee ajir waa ka helaysaa يعني ما سو حسابي كري ما سو كوبي كري هذا ما أنت وحسابها ما سو كوبي كري وحلا جيلي قرآنك مركا كتابك أن قصانو هاي راتو إلى هيو هلين الله كدي قلبنا بلود سيقو بشر رمضان صدق كذا مكنا مينا ده حتى قو وات أنت آخري كرت مالك أنت آخري كرت بر نفتبر مركا دم حركة سا محل ده هذا جو بلدن أما لو بالكذي كنا ميسر أنا جو حرام مركا تارجتكيga aan u socdo mustaqbalka waxa waaye jus maalintii bishii inaan mar dhameeyo taas ayaga target ah quraan xafidka waxa waaye sheeko kale waay akhrintana sheeko kale waay ilaahay duu carab ku furay oo akhrin kartid maalintii hal line ba Allah ka dhigay tababar si nafta marka ilaankaas ku toosto hor u soco kor u sii aad raashinka inaan buuq badan isku furin raashinka samee wixii firinjeerka aad geli kartid firinjeerka geli haddaa meelahan joogtid mar kastabane ilaahay la wakiilo inuu waxaas ilaahay kuu barakeeyo marka saaxiibayaalow rabadaanka waa soo dhow yahay wax yaraa noogu dhiman ilaahay salaam ha nagu geeyo maxaa la dhahaa dadaalkan aan badino dhinaca qur-aanka iyo dhinaca dhaqaalaha aan ka fikirno sidii aan dad wax u gaarsiin lahayn iyo sidii aan annaka nafteedane anagoo degan og waxaan qabanayno aan nafteedan ugu dari lahayn inaan cibaadaysano alla subxaana watacaala waxaan ka baryayaa inuu idinka iyo annaka waalidkiin waalidiinta muslimiin sidaan u dhannahay raxmadiisa waasaca ah jannatul firdaws acla nagu wada geeyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu